Somaliland iyo waftigiisaba aad baan u soo dhaweynaya in fact hore looga hadlay laase in yar baan doonayaa si yar faahfaahiyo jaacadii barigi dhooto la dhagax dhigay iyo sababaha keenay laga soo bilaabo 2013 ilaa 2016 waxa dugsiyada sare ee gobolka ka qalin jabiyay arday ku dhow 1722 arday waxa jaamacad ka galay in ka yar 380 arday sababo awgeed oo fara badan oo ay ka mid tahay duruufaha familiyada oo aan kari karin ee ardaygii fiigi jaamacadana bixiyaan ama meel kalena u diraan sida awgeed waxa taasi ku keentay gobolka oo dhan in iskuulo fara badani ay noqdaan bilaa in macallimiintu ay dib bilaa macallimiin u xidmaan in fact 2013 ilaa 2016 same time ardaydii ka graduate gareysay jaamacadaha wadanka ee gobolka u dhashay 1% less than 1% ayaa gobolka dib ugu soo noqday laana way ku adkaatay inay dib ugu soo noqdaan halkan shaqo ku sameeyaan taa markii ay dhacday 2016 bishii 7/22 waxa la rajiis gareeyay oo Jamhuuriyadda Soomaaliland laga rajiis gareeyay jaamacad magaceeda la yiraahdo Leadership and Development of Science University oo laga dhagax dhigay Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka dhagax dhigay magaalada Garadeg in fact jaamacaddu ma aha mid business ahaan loo furtay 2016 ilaa hadda way rajiis gareysan tahay waa jaamacad ku xidhan wadanka dabadiisa ay shahaado muxtarifana ka haysatay jaamacad la yiraahdo UK ku taala magaalada Birmingham oo la yiraahdo Birmingham College University oo xidhiidh la leh marka maadaama halkan uu madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka dhagax dhigay laga October 2017 ka dhagax dhigay taasina waxay u soo loogu talagalay in ardayda badan ee bilaa jaamacad noqotay ama duruufo saamixi waayeen in gobolada kale ee wadanka jaamacad ka dhigtaan in halkan ay uga noqoto fursad ay jaamacad ku dhigtaan in fact jaamacadan waxa kale oo ay kaga duwanaan doontaa jaamacadaha kale wadanka ay markii hore kaga duwaneyd maaha jaamacad business ahaan loo furay oo hadii loo furi lahaa business ahaan bari horaba la furi lahaa maadaama COVID-19 bishii July 2016 la rajiis gareeyay jaamacadan waxa xidhiidh la leedahay san hore u sheegay jaamacadaha UK ku yaala waxa volunteer uga yiri waxbaan uga dhiganaa dad gobolka u dhashay oo u badan North America iyo United Kingdom ama UK oo voluntarily wax uga dhigi doona online marka la dhiso kadib waxa halkan madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ugu deeqay jaamacadda lacag qadarkeedu ahaa xogaa oo uu xafiiska madaxweynaha iminka yaala wasaaradda maaliyadana la taala waxaan jeclaan lahayn madaxweynuhu Jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo mar labaad ka codsanayna haddii ay suurtagal tahay in mar labaad la dhagax dhigo ama haddii ay tahay in loo soo daayo wixii markii hore loogu ballan qaaday si dadka badan ee gobolku ay uga faa'iideystaan insha Allah taala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawaad madaxweyne gaar ahaan gobolka. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.